marka ay timaado awoodaha militari ee dalalka Masar iyo Itoobiya farqi ahaan waa kuwo aad u kala fog. Masar waxaa lagu qiimeeyaa inay ka mid tahay 10 dal ee ugu awoodda badan caalamka marka la eego dhanka militariga. Shabakadda Global Firepower oo inta badan qiimeysa awoodaha militari caalamka waxa ay ku sheegtay in militariga Masar uu ku jiro kaalinta 9aad ee dalalka ugu awoodda badan caalamka, halka militariga Itoobiyana uu ku jiro kaalinta 6aad ee militariga awoodaha caalamka. sidoo kale wargeysku waxa uu militariga waddanka Masar ku tilmaamay kan ugu awoodda badan dalalka Bariga Dhexe marka laga tago dalka Turkiga oo ah dalka ugu awoodda badan gobolka Bariga Dhexe. Shacabka dalka Masar oo wargeysku ku qiyaasay ilaa 100 milyan oo qof ayaa tirada dadka dagaalami kara waxa uu ku sheegay inay gaarayaan ilaa 50 milyan oo qof, halka kuwa howlgalka hore ka geli karana lagu qiyaasay ilaa 36 milyan oo qof. ciidanka militariga ee dhulka ee u diiwaan gashan wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Masar ayuu waxa uu tiradooda wargeysku ku sheegay ilaa 1 milyan oo askari inay ku dhow yihiin, halka ciidamada hadda howlgali kara tiradoodu ay gaarayso ilaa nus milyan. Dowladda Masar ayaa sidoo kale waxa ay haysataa ciidamo kayd ah oo gaaraya ilaa 480,000 oo askari, kuwaas oo haddii loo baahdo saacad kasta dagaal geli kara. wargeysku sidoo kale waxa uu wariyay in Masar ay haysato ilaa 4,295 taangiyada dagaalka iyo sidoo kale 11,700 oo ah gawaarida gaashaaman, waxaana intaas sii dheer 2,189 ah gantaalada goobta laga rido iyo sidoo kale 1,084 ka mid ah madaafiicda wax duqeeya. dhanka ciidanka badda ee dalka Masar, shabakadda Global Firepower waxa ay ku sheegtay in agabka ay haystaan guud ahaanba uu gaarayo ilaa 316. ciidanka badda ee dalka Masar ayaa haysta 2 markab oo ah kuwa qaada diyaaradaha, kuwaas oo ay adag tahay in laga helo wadamada Afrikaanka ama aysan haysan. waxa ay xukuumadda Qaahira haysataa ilaa 2 markab oo ah kuwa dagaalka ah, 8 gujis oo ah kuwa badda hoosteeda quusa, iyo 45 nooc oo ah maraakiibta wax kormeera, iyo sidoo kale 31 maraakiibta nooca badda ah, kuwaas oo miinooyinka ku aasa badda hoosteeda ama burburiya kuwa lagu aaso. militariga dalka Masar ayaa sanadkiiba waxaa lagu qarash gareeyaa ilaa lacag dhan 3 bilyan oo dollar oo adduun lacageed ah, waxaana ka qayb ah lacagtaasi lacag ay bixiso dowladda Mareykanka. ciidanka ciirka ee dalka Masar ayaa haysta 215 diyaaradood ah nooca dagaalka, 59 diyaaradood ah militariga xamuulka qaada, iyo sidoo kale 387 diyaaradaha lagu tababaray ciidamada cirka. waxaa intaas sii dheer 294 diyaaradaha qumaatiga u kaca ama loo yaqaano helikobtarka, iyo sidoo kale 81 helikobtarada wax weeraro ah. haddii aan u nimaano awoodda ciidan ee militariga dalka Itoobiya waxa ay ka mid tahay dalalka ugu awoodda badan Geeska Afrika. tirada dadka ku nool waddanka Itoobiya ayaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan ilaa 110 milyan oo ruux. dadka awoodi kara inay dagaalamaan ayaa waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan ilaa 41 milyan oo qof, halka ciidanka u diiwaan gashan wasaaradda gaashaandhigga dalka Itoobiyana ay u dhaxeeyaan 162,000 ilaa 300,000 oo askari. militariga dalka Itoobiya ayaa waxa uu wargeysku ku qiimeeyey inuu haysto ilaa 400 oo ah taangiyada dagaalka iyo 114 baabuurta gaashaaman ah, iyo sidoo kale 67 gantaalada dhulka lagu rakibo ee loo yaqaano artilleriga. waxaa kaloo intaas sii dheer 183 ah madaafiicda wax duqeysa. ciidanka cirka ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu wargeysku ku qiimeeyey inay yihiin kuwo awood badan marka loo eego wadamada Geeska Afrika, waxaana dhowaan ciidankoodu lagu xoojiyey hanaanka gantaalada difaaca cirka oo ay ka soo iibsadeen wadamada Faransiiska iyo sidoo kale Turkiga. diyaaradaha dagaalka ee dalka Itoobiya ayaa lagu qiyaasay inay gaarayaan ilaa 24 diyaaradood ah kuwa miiga iyo sidoo kale 9 diyaaradood ah kuwa xamuulka qaada. waxaa intaas sii dheer 20 diyaaradood ah kuwa lagu tababaro ciidamada cirka iyo 33 diyaaradood ah nooca qumaatiga u kaca ama loo yaqaano helikobtarada. waxaa intaas sii dheer 8 nooc oo ah kuwa wax duqeeya. Itoobiya ayuu wargeysku ku sheegay inaysan lahayn ciidan bad oo cayiman maadaama aysan lahayn bad.